arladan dusheeda meelaha ilaahay ugu jecel yahay waa masaajidda, meelaha ilaahay ugu necab yahayna waa aswaaqda. maadaama masaajiddu ay tahay meelaha ilaahay arlada ugu jecel yahay, dadka masaajidda camirayana waxaad ogaataa waa addoommaha ilaahay waa addoomihiisa ugu jecel yahay. allah inaga dhigo. maadaama aswaaqduna ay tahay abgadu lbilaadi ila allah, meelaha ilaahay uu arlada ugu necab yahay, dadka aswaaqda awqaadooda ku bixinaya maqaaxiyaha inta badan fadhiisanaya ee suuqa uun kolba xaggaa kolna xaggaa u soconaya waqtigu kaga dhammaanayo, ayakuna waxay noqonayaan markaa dadka ilaahay uu necab yahay bay ku biirayaan. masjidkii nabigeena calayhi salaatu wasalaam ayuu nabigeenu xalaqad ka hayay. xalaqad daa'iman masjidka nabigeenu wuxuu ahaa masjid macmuur ah. deedna markaa buu nebigu sal alla alay wasalam isagoo xalaqadii haya oo dadkii qur-aanka iyo cilmiga baraya, ayaa 3 nin baa markaa masjidka nebiga sidaa usoo ag martay sal alla alay wasalam. xalaqadii socotay buu mid arkay oo meel bannaan buu ka helay, deedna meeshii bannaanayd buu fadhiisto uu buuxiyey. midna xalaqadii buu meel uu ka fadhiisto waayey, meeshii markaa ay la noqotay u bannaanayd buu markaa iska fadhiistay. midna xalaqadii buu eegeegay, meel uu ka fadhiistana u waayey, intuu sidaa u eegay ayuu iskaga jeesta iska socday. rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam 3daa nin buu nebigu markaa macno cajiiba uu ka bixiyo, wuxuu yidhi kii furjada helay ee soo buuxiyeyna ilaahay naxariistiisiibuu usoo dhowaado, ilaahayna naxariistiisiibuu u dhoweeyey. kii dadka muslimiinta hantaaqdii ciriiriga kala xishooday gadaashooda fadhiistayna isagana ilaahay baa ka xishooday buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam. kii majliska ka jeestayna isagana ilaahay baa raxmadiisii kala jeestay buu rasuulku yidhi. 2 xalaqadood oo masjidka ka socotuu nebigu arkay, xalaqatu lcilmi iyo xalaqatu dikri. meelna waxay ahayd xalaqad ilaahay lagu xusaayo, xalaqadna waxay ahayd xalaqad qur-aanka iyo axaadiista nebiga lagu baranaayo oo siirada islaamka iyo diinta lagu baranaayo. markaa buu nebigu yihi labaduba khayr bay ku sugan yihiin, laakiin aniga maadaama ilaahay mucallim uu iga dhigay, xalaqadii cilmigu nebigu fadhiistay calayhi salaatu wasalaam. labada xalaqadoodba khayr bay ku sugan yihiin buu nebigu yihi. taa dikriguna waa khayr, taa cilmiguna waa khayr, laakiin maadaama aniga ilaahay uu ila soo saaray xaalo aan ahay mucallim ummadda ilaahay baraya, taa cilmigaan fadhiisan oo tii cilmigu nebigu fadhiistay sala allahu calayhi waaalihi wasaxbihi wasalam. isagoo masaajidkiisa maalin nebigu khudbadii jeedinaya ayuu inteenaa sala taagan haddaad fadhiisataan baa inii fiican, yar fadhiista insha allah, yar fadhiista insha allah. albaabada haddaad hor joogsataan hawadaa nagu xidhmaysa annakana, deedna masaajidkuna kuleel buu noqon markaas. mar haddaad maqlaysaan araggaygu waxba inii kordhin maaye, soomaali cawlanoo sidiina un baan ahe, iska fadhiista insha allah. allah ina barakeeyo, khayr jacayl bay naga muuqda. horta intiina dhexda fadhiista maasha allah, dhalinyaradii maasha allah ina barakeeyo. runtii waan ku faraxsannahay sida masaajidda u camiraysaan. ismaqalla insha allah fiican tihiin maasha allah, ismaqalka aad baad ugu fiican tihiin. deedna nabigeenu calayhi salaatu wasalaam isagoo mambarka khudbadda joogo khudbadaynaya ayuu saxaabadiisa ku yidhi ijlisuu fadhiista. cabdullaahi bn rawaaxa radia allahu canhu, saxaabiga la odhan jiray oo dibadda maaragtaanee socda, ayaa hadalkii nebigu maqlay, nebiga oo la fadhiista. deedna halkiibuu hambashiro banaankiibuu iska fadhiistay cadceedda dhexdeeda. markaasuu nebigu arkay sal alla alay wasalam. cabdullaahi buu yihi soo gal. markaa buu nebiga u yimid oo wuxuu ku yidhi maxaa cadceedda ku fadhiisiiyey buu ka yidhi. markaa buu yihi adigoo fadhiista le ayaan maqlo, dee soo inaan fadhiista maahin buu yidhi. markaa buu nebigu u duceeyo wuxuu yidhi zaadaka allahu xirsan calaa tawaaciyati اllaahi wa tawaaciyati rasuulihi. dadaalka aada ugu jirto ilaaha iyo rasuulkiisa inaad raalli geliso ood adeecdo, allah kuu ziyaadiyey buu nebigu ka yidhi. nabigeenu calayhi salaatu wasalaam murshid buu ahaa, mursal buu ahaa, mucallim buu ahaa, mubashir buu ahaa, nadiir buu ahaa, daaci buu ahaa, mudaris buu ahaa, murabbi buu ahaa. murabbi mujaahid buu nabigeenu ahaa sal alla alay wasalam.
shujaac buu ahaa, sakhi buu ahaa nebigeenu, xaliim dulqaad badan buu ahaa, ceebta dadkana ka astura ayuu ahaa, cafuwun buu ahaa nebigu, mid dadka iska cafiya buu ahaa, kariim mid deeqsiya buu ahaa nebigu, oo dadka karamkiisu meel walba uu gaaro. wax lama weydiisan, haddii la weydiista nebigeenu calayhi salaatu wasalaam maya ma odhan nebigeenu, maa qaala laa ilaa fi tashahudi, ma odhan weligii nebigu laa ilaa tashahudka marka ataxiyaadka la akhrisanayo mooyaane. marka ayaan ku dayanaynaa, yaa qudwo inoo ah, yaa mucallim inoo ah, ayuhal muslim ayaad noloshaada kaga dayanaysaa. acdam shaksiya fi taarikh buu ahaa nabigeenu sal alla alay slam, dadka adduunka soo maray shaksiga ugu taariikh weyn, ugu taariikh wanaagsan, ugu akhlaaq wanaagsan, ugu dhaqan fiican, ugu dulqaad badan, ugu cafis badan, ugu deeqsi badan, ugu geesinimo badan, ugu sakhisan buu ahaa nabigeenu sal alla alay slam, uguna taqwo badan buu ahaa. si fiican u dhegeysta insha allah. wixii ilaahay na soo dhex mariya khayra, ilaahay baan ka rajaynaa wax khayr inuu na soo dhex mariyo, annagana nagu anfaco, ininkana uu nagu anfaco. acdam shaksiya fi taarikh alcaalam buu ahaa, awaliin iyo aakhiriin marka la isku geeyey shaksiga ugu sharaf badan, ugu karaamo badan, ilaahay agtiisa loo jecel yahay nebigeena moxamed buu ahaa calayhi salaatu wasalaam. alaa wa ana xabiib الraxmaan, imaam qaadi cayaad raxmat ullaahi calayh kitaabu shifa ayuu xadiiskaa ku qoray. majmuuca min asaxaaba, saxaabada qaar ka mid oo meel iyakoo fadhiya ayaa waxay hadal qaadeen ambiyadii calayhim assalaam. mid saxaabada ka mida wuxuu yidhi acjabanii ibraahimu اlkhaliil, aniga nebi ibraahim baa cajabiyey, oo la yidhi waa khaliilki ilaahay saaxiibkiisii. ku kalaa yidhi anigana waxay cajabiyey muuse calayhi salaam, oo la yidhi kaliimullah wayaanu hadalka ilaahay buu maqlaayey. ku kalaa yidhi anigana waxay cajabiyey sulaymaan, oo mulkiga adduunka oo dhan ilaahay uu gacantiisa ka geliyey, mulki isaga dabadiina ciddanba aan u qalmayn baa nebi sulaymaan la siiyey. ku kalaa yidhi anigana nebi ciisaan la yaabo i cajabiyey buu yidhi, nebiga maaragtaane dhooqada ayuu shimbir suuraddeeda intuu ka sawiro ayaa ruuxda intoo loo dhiibo uu ku afuufaayey. wuxuu ahaa nebi qof allii qofkii barasle ee loo keeno gacanta hadduu saaro qofka barastaasi way ka tegaysay, qofka indhoolaha haddii loo keeno uu gacanta saaro indhaha ayaa u furmaayay ilaahay idankiisa. dadka bini aadamku waxay aqaladooda ku haystaan nebiga og ee dadka kale uga sheekeyn kara buu ahaa. markaa buu nebigu sal alla alay wasalam majmacii saxaabadu iyakoo meeshii fadhiyay buu nebigu kor yimid oo wuxuu yihi hadalkaad lahaydeen oo dhan waan maqlaayey, waana sidaad tidhaahdeen buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam, waa sidii aad tidhaahdeenoo nebiyullaahi ibraahim calayhi salaam waa ilaahay khaliilkii, muusa calayhi salaamna waa kaliimullah, ciisa calayhi salaamna waa ruuxullah, alaa wa ina saaxibukum xabiibullah. markaa buu nebigu yihi dhegeysto in maqla, saaxiibkiina moxamed calayhi salaatu wasalaam ilaaha khaaliqee khalqiga abuurtay waa kii uu khalqigiisa ugu jeclaayo ogaada buu rasuulku yihi. khaliilullah iyo xabiib الraxmaan farqi baa u dhexeeya culammadu yidhahdaan. khaliilullah waa ibraahim calayhi الsalaam, ibraahim isagaa ilaahay jeclaaday baa la yidhi, laakiin xabiibka baa la yidhi he ilaahay baa nebi maxamed jeclaaday calayhi salaatu wasalaam. marka ilaahay baana qur-aankiisa ku yidhi walowlaa fadlu اllahi calayka waraxmatuhu lahama طaa'ifaة minhum an yudiluuka wma yudiluuna ila bianfusihim wma yaduruunaka min shay wacallama allahu calayka alkitaaba ma lam takun taclam wakana fadlu اllahi calayka cadiima. wacallamaka ma lam takun taclam wakana fadlu اllahi calayka cadiima. shaksiga bashariyadda ugu khayr badan ee ugu karaamo badan buu ahaa. aayaddaa markay nebigeenna ku soo dul degtay wa amaa binicmati rabbika faxadith, nicmadda rabbigaa uu ku siiyey baa nebiga lagu yihi dadka uga sheekee. markaa buu nebigu saxaabadiisa ku yidhi ana awalu nnaasi khuruujan idaa bucithuu, maalinka qiyaamaha ee dadku dhulka ay ka soo bixi doonaan, ee dhulku intuu dillaaco qof walba uu ka soo bixi doono, shaksiga ugu horeeya buu nebigu yihi ee dhulka ka soo baxaya buu yihi waa aniga. deedna xaggayga midig baan daymoon, abibakar baa igu xiga buu nebigu yidhi, deedna xagga bidix baan daymoon, deedna cumar baa soo bixi doona. labadooda intuu nebigu labada gacmood qabtay buu ku yidhi haakadaa nubcahu yowma alqiyaamati in shaa allah,
aniga iyo abibakar iyo cumar qiyaamaha sidaasaan usoo bixi doonaa buu nebigu yidhi ana awalu nnaasi khuruujan idaa bucithuu khatiibuhum idaa ansituu mubashiruhum idaa a'isuu shaaficuhum idaa xubisuu liwaau lxamdi biyadi yowma alqiyaama maalinka dadku ay aamusi doonaan ka u hadlaya buu nebigu yihi aniga calayh isalaatu wasalaam maalinka dadka la joojiye la xabaaso ee cadceedda halkaa inaga gubaysa qadra miil qofka bini aadamka madaxiisa la kor keeno maalinka cadceedda bini aadamka madaxooga la dul saari doona buu nebigu yidhi ka u ergeynaya khalqiga oo ilaahay ku odhan doona ilaahu khalqigana adiga abuuree u naxariiso oo maaragtaane ha la xisaabo oo kii jannada mutaystana jannada xaggeeda ha loo qaado kii naarta mutaystana naarta dhinaceega ha loo qaadee ilaahu khalqigan maaragtaane ha laga dhaqaajiya meesha shaksiga odhani doone carshiga intuu hoos tago ilaahay ammaan cid kale aysan hore u ammaanin loo furi doone ammaani doona baan ahay buu nebigu yihi calayh isalaatu wasalaam mubashirahum idaa aisuu baa nebigu yihi maalinka dadku ay quusanayaan ka u bishaaraynaya waa aniga liwaau lxamdi biyadi yowma alqiyaama calanka mahadda maalinta gacantayduu ku jiraa faanaygama abuu nebigu yidhi wa ana akramu waladi aadama calaa rabbi walaa fakhr waladka aadamuu dhalay oo dhan shaksiga ugu darajad sarreeya ee ugu sayidsan buu nebigu yihi waa aniga faana igama abu nebigeenu calayh salaatu wasalaam faana igama abu rasuulku yidhi yar fadhiista adeer yar fadhiista adeer yar fadhiista raalli ahaada maa sha allah waan ognaha khayr baad jeceshihiin oo baalkan aad la kacaysaan ad duubaysaan meelahaaba laga duubaayo ka dhegaysta ilaahay khayr qalbiga khayrka allah inoo geliya siduu sheekhu sheegaye waxaad moobeelka ku jira diin dadku ayay moodayaan war diintu waa waxa adiga kugu jiraa diin la yidhahdaa salaadaad tukatay baa diina qur-aanka intaad haysa baa diina khayrkaad samaynaysid baa diina laakiin moobeelka ayaa wadaadadii o dhan culammadii muxaadaraadkooda laygu duubay taasi diin ma noqonaysa ogow moobeelka shar iyo khayrba u ka buuxaa marka insha allah iska fadhiisto meelaha ka dhegeysta qalbiga allah inoo furo marka nabigeena moxamed calayhi الsalaatu wasalaam sayidu waladi aadam buu ahaa isagaan markaa ku dayanaynaa ayaa ku dayanaynaa hor ayaa ku dayanaynaa laqad kaana lakum fii rasuuli اllaahi uswaة xasana liman kaana yarju اllaha walyowma alaakhir wadakara allaha kaiira ilaahay caza wajala waxa uu ina leeyahay rasuulkiisa moxamed calayhi الsalaatu wasalaam waxay inagu sugnaatay kudayasho wanaagsan buu ilaahay yihi kudayasho wanaagsan shareecad buu nebigu la yimid ee dhamaystiran malagna ma ahayn waa bashar bashar buu ahaa qul inamaa ana basharu milukum baa layihi bashar inakoo kale inala mida buu ahaa oo haddaad adigu jiif u baahan tahay isaguna jiifka u baahan buu ahaa haddaad cunno u baahan tahay ka cunnada u baahan buu ahaa haddaad dhar xidhanaysa dhar isaguba uu xidhay haddaad maaragtaane dad mujtamac iyo ehel iyo qaraabo aad lahayd isaguna uu ku dhex jiroon mujtamacaas marka macnaha maxaa nebiga looga dhigay bashar baa layidhi oo malaa'ig looga dhigi waaye laanna malaa'igta haddii laynoo soo diri lahaa oo la odhan lahaa malag ayaa nebi iyo rasuul layniga dhigay ku dayda malaa'igta kuma dayan karnayn waayo malaa'igtu waa nuuraaniyiin shahawaaniyiin iyo kuma aha malaa'igta shahawaad lagumaba abuurin gudahooge waxaa laga abuuray nuuro ilaahay daacaddiisay u abuuran yihiinoo ilaahay maba caasiyaan malaa'igtu laa yacsuuna allaha ma amarahum wayafcaluuna maa yu'maruun marka malag haddii la yidhaha ku dayda kuma dayan karayna maaragtana malaga laakiin waxaa lagaaga dhigay rasuul nebi waxaa lagaaga dhigay bani aadam shaksi bani aadama oo adigoo kale ah oo 9 bilood ku dhashay calayhi الsalaatu wasalaam oo reere ayuu lahaa oo ubad ayuu lahaa oo qaraabo ayuu lahaa oo deris buu lahaa oo uu baahnaa waxaad u baahan tahay ka u baahan buu ahaa waa jiifsataa uu jiifsanayey waan cunnaa uu cunayey dhar baad xidhataa uu xidhanayey reeruu lahaa reeraad leedahay marka nebiga moxamed calayhi الsalaatu wasalaam waa murshid waa mucallimkeennii waa qudwadeennii isagaa la doonaya dadka muslimiintu inay ku daydaan